ninkan aa ujeedaan jinka wuu ka cabsan jiray meeshuu ninkan ku arana wuu ka carari jiray jinka. ninkani mataqaanaa dadka muslimiinta wuxuu bari jiray diinta, markaasaa jinka muslimka asaga u imaan jiray oo wuxuu ka baran jiray diinta. laakiin kan gaalka ah maaragtay ninkan magaciisa hadduu maqo wuu oyn jiray. لما استحضر الجني قال هذا الرجل لو سمعنا اسمه حنا نحترق. درس الإنس والجن هو صحيح. kusoo dhawaada sheekada oo ugu yaabka badan oo qisadii ugu xanuunka badneyd sheekh ibnilbaas. sheekadani waa la yaabi doontaan, yacni waa sheeko aan maskaxda gelaynin, laakiin waa sheeko run ah. yacni jinni intuu insi iska soo dhigo oo sheekha hortiisa fariisto oo wax ka baranaya sheekha. waxba cabsanin, sheekadan mataqaanaa si fiicana u gudagalaynaa. koobkaaga shaaxa soo qaado, hana naga ilaawin inaad sheer garaysid oo laygtana aad noo saartid sheekadii ugula yaabka badnayd wey. 1960 baa magaalo yar oo ku taalo Sacuudi Carabiya baa waxaa deganayeen dad yaryar oo iska masaakiina oo yacni xaalkooda iska yaryaha oo iska dhib yar. markaasaa habeenada ka mid ah xilli dambe, yacni 1 habeenimo camal oo kale ee waxay maqleen dariskoo dhan qaylo oo ka soo baxayso guri oo guryaha ka mid ah. dariskii gurigii oo qaylada ka soo baxayeen bay tageen. gurigaasna waxaa iska lahaa nin la yiraahdo Maxamed. ninkii albaabka markay ku karkaraaceen albaabka uu ka furay oo wuxuu ku yiraahday iga soo gaaro. uu dhaha gabadhayda Zaynab, uu dhaha dhulka isku jiidaysa, dhulka isku garaacaysa oo way qaylinaysa oo wax helay ma garanayo. dariskii gabadha markay fiiriyeen mataqaanaa waxay hubsadeen gabadhaani inuu jinni ku dhex jiro oo jinni ka dhex shaqaysanayo. sidee bay ku hubsadeen hadda is leedahay? gabadha mataqaanaa siday u qaylinaysay iyo siday isu jaraynaysay, gabadha codka ka soo baxayana codkeedii maaha oo waxaa ka soo baxaya cod nimeed. codkaasina wuxuu dhahaya mataqaanaa iga saara, aniga ninkaan iga saara, maraba ninkaani hala iga saaro, hala iga fogeeyo uu dhahaya. aadu bil amshitaani aniga xilli dambe sheekadan ka shaqeyna ilaa waniga waxa lagu soo beercod. isla markiiba dadkii dariska way ordeen oo sheekh meesha deganaa oo agtooda ahaa bay intay u tageen albaabku gargaraaceen. wuxuu ku yiraahday naga soo gaar. markaas wuxuu ku yiraahday maxaa dhacay xilligan dambe albaabka igu soo gargaraacaysa? markaas wuxuu ku yiraahday waan ku baryaynaa gabar baa naga xanuunsan soo bax. sheekh uu soo bax. sheekhan yuu yahay leedihiin hadeertaan. sheekhan waxaa la yiraahdaa sheekh Cabdalla la yiraahdaa, wuxuuna jiraa 53 sano. sheekhaana quraanka dhan kor buu ka xafdisan yahay oo magaalada waxa degan oo dhan asaga quraanka ku akhriyo oo haddana waxyaalahan waxbuu ka yaqaanaa. sheekha saa markuu u soo galay guriga wuxuu arkay Zaynab oo corner fadhido oo mataqaanaa ku hayso waxaan halaga saaro meesha, halayga fogeeyo. sheekhi markuu soo galay wuxuu ku yiraahday assalaamu calaykum buu ku dhahay. adiga ma muslim baa tahay mise gaal baa tahay? Zaynab markaas waxay ku jawaabtay ama kii ku dhex jiray waxay ku jawaabtay mataqaanaa adiga baanid waxaana inaa ogaatid adiga inaa wax qaban kartid baad isu malaysaa, laakiin aniga waxba igama qaadi kartid waxna ma samayn kartid. joogistaada iyo maqnaashahaaga isku mid bay yihiin. sheekha markaas wuxuu ku yiraahdaa haddaa mataqaanaa asaan aad u adag tahay yaa maxaad la qaylinaysaa, maxaa la jaraynaysaa, maxaad ugu haysaa ka saara meeshaan, qofkan meesha laga saaro maraba in ula joogo maxaa u leedahay? markaasaa Zaynab maaragtay jinnigii ku dhex jiray intuu fiiriyo sheekha uu farta wuxuu ugu fiiqay koonarka guriga geeskiisa oo ugu fiiqa farta. sheekhii meeshii farta lagu fiiqay buu aaday. markuu aaday kitaab baa yaalay. kitaabkana yaa lahaa mataqaanaa kitaabka oo kor u soo qaado oo kitaabka waxaa iska lahaa Cabdilbaas. sheekh Cabdilbaas baa kitaabkaas alifay oo mataqaanaa. markaasuu kitaabkii intuu soo qaaday uu wuxuu fiiriyey jinnigii ama Zaynabtii buu fiiriyey oo wuxuu ku yiraahday kitaabkan maad ka baqaysaa? markaasuu jinnigii wuxuu yiraahday haa, aniga ninkaas kitaabka alifay baan ka cabsanayaa oo mataqaanaa maraba ninkaas ha laga saaro guriga. sheekhii markaas wuxuu ku yiraahday mataqaanaa hadda fiiriyo ku dhahay adigoo saa u cabsanaysid aniga hadeertaan waxaan ku leeyahay haddaada gabadha aada ka bixinin sheekhaas baan hadda right now ku keenaya.
intuu ooyey jinnigii buu wuxuu ku yidhaahday waa ku baryayaa ha iigu wacin aniga waan baxayaa waan ka baxayaa isla markiiba jinnigii wuu ka baxay Zaynab sheekhani waxaa la yidhaahdaa Cabdilcasiis bini Cabdalla Albaas aa la yidhaahdaa wuxuu dhashtay 1912 wuxuuna ku dhashtay magaalada Riyaad sheekhani asagoo yar buu aabihiis dhintay 25 sano markuu gaarana mataqaanaa cilmiga quraanka iyo cilmiga si u yaqaanay makhluuq u yaqaanay ma jirto 25 sano jirna markuu gaaray hooyadiis baa dhimatay sheekhani dacdooyinkiisa iyo sheekooyinkiisa ma aragtay lama xisaabin karo hal sheega ka mid ah aan inii sheegi karaa oo mataqaanaa ninka driverkiisa ah oo 24 saacadood la soconayay sheekhanina waa sheekh indhala oo indhihiisa uu ku arkay driverka sheekadaasi uu dadka la wadaagay wallaahi mucjiso bay ahayd maadaama ay sheekada sii dheeraato mataqaanaa part 2 baan ka sameynaynaa yaa videogan haddaa intaa aa soo gaarta maaragtay like-ta aan shareta hanala dhaafin oo mataqaanaa sii faafi videogan adigoo mahadsan walaashay waxay la fakatay ninkaygii intaana sheekada aana gudaha usii gelin waxaa soo qaadataa koobkaaga shaaxa ama biyahaagii ama cabitaankaagii ama canjeeradaada sidaa u duwan jirtay oo kale videogana like-tiisa aan sharetiisa ha ilaawin walaashay iyo aniga waxaan haysanay kalsoonida ugu weyn yani wax walba ayadaa ay ahayd waxay ahayd saaxiib waxay ahayd wehel waxay ahayd walaal yani wax walba ani iyadana waxaa noo dhaxaysa kaliya 1 sano haddana mataqaanaa ani walaashay waxba ma kala qarsan jirnay wax walba oo isu sheegi jirnay maalin maalmaha ka mid ah walaashay waxay baratay wiil bay Facebook ka baratay wiilkaasi mar walba way sheekaysan jireen laakiin mushkiladda ugu weyn waxa weeye mataqaanaa annaga waxaan ka dhalanay family oo ma aragtay wadaada ah aan ogoleen wiil la sheekaystay jinni iyo jaan iyo waxaas lama ogolo ani walaashay waxba ma iga qarinayso wax walba way ii sheegaysaa laakiin maalintii dambe waxa dhacay mataqaanaa wiilkii waxay go'aan ku gaareen inay wada kulmaan way ii sheegtay waxay ku tiraahday wiilkaasaan rabaa inaan la kulmo waxa ku dhac aabo iyo familka cid ka yeelaysa ma jirto waana la tuma waana la dila may adiga waxa tiraahdaa ay dhahday walaashay gabar saaxiibadeeda wax la soo akhrisan oo marka guriga tagtay annagoo saa jaamacadda uga soo baxnay ninkan gaari kala jiidan wata ha yimaadano markuu gaariga saalaaki uga soo degtay wuxuu ahaa nin qurux badan oo Allah aniga waa soo baxay gurigii baa imaaday guriga markaa imaado mataqaanaa aabo xanaaqsan oo karaya yimaado awlaasha dhahay markaas aabo waxa ku dhahay aabo gabar saaxiibadeeda wax la soo akhrisanaysa markaas wuxuu ugu yiraahdaa hadda waxa ku tiraahdaa guriga hadda ha timaado aniga waa cabsaday ayadii baan waxa ku dhahay aabo wuxuu yiraahdaa hadda imauna xanaaqsan ayada way cabsatay oo gurigii bay dhaqso ku timaaday ileen aabo wuxuu la xanaaqsan yahay eedaa waxay ku tiraahday gabadhaadii oo gaarin in la saaran baan arkay aabana mataqaanaa eeda waxa ay ku tiraahdo direct waa aaminaano ayada kaliya walaal la leeyahay oo gabar la ah tan guriga markay timaado mataqaanaa waa la weydiiyay waxa lagu dhaxagay ku maqlada gabadha wax la soo akhrisanay beenteedii oo dhan banaanka timaado waa la bugdhabo waa la dilay ka bacdina taleefanka waa laga qaato oo ciqaab baa la marsiiyay xataa jaamacad ma aaday sida lagu dhax anigoo jaamacadda imaado tiina la ciqaabay oo loo diido wax walba oo jaamacadda saa u imaaday waxa iga hor yimaaday walaashay saaxiibkeed oo la yiraahdo Amiir wuxuu yiraahday tani shalay baan soo wacay xagee bay jirtaa maxaa ku dhacay wixii baa u sheegay markaas wuxuu ku yiraahday guriga markaa tagtid taleefankaaga mataqaanaa iga soo wacdo inaan ma aragta xaaladeeda ogaadaan rabay hayo way aan ku dhacay gurigii baan imaaday guriga markaa imaado mataqaanaa ayadii baa u sheegay way wacday mar walbana taleefankayga kala sheekaysan jirtay maadaama taleefankii laga qaaday waxaa yimaada mataqaanaa termkii labaad oo jaamacadda la galayay aabo wuxuu ku yiraahdaa daada mar dambe waxa aad sameeyeen oo darooyinka aad ku dhaqaaqeen mataqaanaa aan ku ogolahay inaad jaamacaddaadii ku laabatid ayadu marka balanay aabaheed ka qaaday waxay tiraahdaa waxaas oo dhan waa iska deeriyaa dhahday taleefankaygii bay soo qabsatay asagii blog bay saartay waxayna ugu tiraahday mar dambe ka qaadin bloggaas sidaa ugu jiro anigu aabahay balan baan ka qaaday كبعد متقانا وصبح أني إسكو جامعتي إسكو إماد جامعتي مركا إمادي نين كان متقانا جامعتي كل ما أسقو بناك تاجن يا وين نينك دي أمير دي وحوي رهدي متقانا أنا وحنا كلها ولا شيء أبي بلان بيك قاضي وحي ترى هذا أفعالها صار ما كبحي مركز حبي رهدي يا كوكو ده ولا شيء أبانو ما أذن كو إمادي يا
markaas wuxuu ku yiraahdaa anigii walaasha waxaan dhex maray yani intaan caawisay waad ku mahadsan tahay oo wuxuu isiiyay gifti oo bahal gacanta lagu xirto oo dahaba oo quruxdeeda ayaabays anuu waan ka diiday laakiin wuxuu ku yiraahdaa waa mahad celintii aan ku mahad celinayo ee iga qaado khasab buu igu dhibo waan iga tagay kabacdi aniga maalintii xiisadii aan ku jiray oo dhan maskaxdeeda asaa ka dhex guuxayno guriga aan imaad balowga ma ka qaataa ma la hadasha laakiin markii dambe balowga waan ka qaaday waan u mahad celiyay marka u mahad celiyana sheekadana meeshaas ka bilaabatay ani asaga sheekadana si u socotay hal sano dhan baan saa ku wada sheekaysanayna kabacdi asaga wuxuu yiraahdaa ma taqaana aniga waxaan rabaa reerkaaga inaan ka soo doono oo waxa dhan ay noqdaan run markaas waxaan ku dhahay maxaa ka qaldan adiga walaashay baa la socon jirtay oo maaragtay walaashay ilaa ay ka guursato ama ay xiriir kale ay samayso gurigeena isku imaan kabacdi walaashay nin baa soo doonay oo faraantiba isu geliyeen kabacdi aniga waxaan ku dhahay markaan waa samayn kartaa asaga marka gurigii buu yimaada aabay uga soo doonay laakiin waarid ma wata waa kaligiis oo qoro socdo walaashay waxay igu tiraahday maxaa iigu sheegi weydanin inaa wada socotaan markaas waxaan ku dhahay amiirkan la sheegayna soo kala socon jira Soomaaliya bay gudaan markaas waxaan ku dhahay hadda asagii waaye adigu laakiin hadda taan nolol kale ta samaysatay maxaa adiga asaga ugu fakaraysaa faraantigii markii la isu geliyay aniga asaga faraanti geliskeeni maalintii kabacdi waxaa bilaabatay inuu mar walba ma taqaana walaashay si kale oo eeg ayadana si kale asaga oo eegto laakiin aan mar walba nafsadeed waxaan ku qancin jiray gifti badan buu ii keeni jiray markaas xas dhigi jiray ma taqaana ninkan giftiga qaaliga ku keenaya ya walaasha ku falay aduba faraantigu geliyay laakiin run hadda inii sheego waa maseeri jiray mar walba markuu walaashay si kale oo eego aniga go'aan waxaan ku gaaray inaan isguursano guurka hadii la sameeyaa isdhahay yani wax badan ba isbedel maadaama sheekadana inta ay soo gaarto ma taqaana ay dheeraatay waxaan ku leenahay ma aragtay waad mahadsan tahay like-ta aan share-tana ha ilaawin part 2 oo si gudbaynaan part 2 walaashay waxay la fakatay ninkeedii ayna hadartan waxa soo qoraysin ma taqaana aniga qoftan ka soo horeeyay part 2 ana soo qoray way aniga ii soo qaadan weyday because of way aan ku soo qaadan way ma taqaana because of follow imatid follow hadda ay soo dhiileed ma aragtay waxa dhici kartay inaan ku soo qaato mar walba ma taqaana ani waxaan ku dadaalaa sheekooyin fiican inaan soo gudbiyo idinkana ma taqaanin ima caawanaysan walaalayaal xaq ma hadde page-kaani hala kala kiciyo follow hala yiraahdo waa daawanaysaa waa dhageysanaysaa kullayba haddaad balaas taabtid maxaa kugu dhacaya malaalmay laakiin ha follow gareen iska daa sheekadana xagee bay noo mareysay waxay noo mareysay yaa gabadhii iyo wiilkii isguursaday kulay waxa la yiraahdo ma taqaana labadii ma aragtay something ku heshiisa ayaga ku soo gudunta I don't know idinka dad taqaani ma aragtay nagu caawiya maahmaahdaas gabadhan markii wiilkii guursatay gurigiisii bay tagtay yaa walaashad ma taqaana ninkii ma guursanin oo ma aragtay faraanti kaliya ahaayeen way kala tageen way istagaaleen ambaradan iyo amiir waa isguursadeen oo gurigii baa la isla tagay deewigii cusbaa oo ma taqaana oo qarsoona oo amiir baa soo baxaya laakiin ayadu waxay isdheeysa ma taqaana dhibaatada dhan way ka yaraanaysaa marka isguursataan laakiin dhibaatadii baa ku soo badatay ninkan amiir leeyahay waa nin lacag leh yani nin ma taqaana ma sha Allah lacagta adduunka haysta way wax walba ee rabtana wuu u sameyn karaa laakiin mararka qaar kood ma taqaana ninka hadduu soo ku jecleen ma aragtay gacanta markuu kugu dhigo xubatiid ninkani naagtan walaashad buu dhexmaraayay ma garatay ninkan wili gabadhii buu jecel yahay tanna doqontaana waa iska aaminta ayada inuu jecel yahay soo tiraada te wuxuu bilaabay ma taqaana inuu la dagaalo inuu dilo oo ma taqaana cunuf la sameeyo kabacdi way yaabta ayada maxaa dhacay isdhaxday ninkanina wuxuu soo ogaaday tii hore uu la sheekeysanayo walaasheed ahaa inay ninkii kala tageen marka muxuu rabaa wada tan uu uga tago tii hore ugu laabto mar walbana ma taqaana way wada kulmaan oo iyada ma ka warqabto laakiin sidee bay ku ogaanaysaa ma taqaana waxay ku ogaatay ninkani iyo ayad walaasheed oo gaariga ku wada jiraan ma taqaana police baa qabtay oo meeshii ma taqaana kashif baa yimaada maxaa isu tihiin idinkoo gaariga ku wada dhex jirtaan yani wadamada muslimiinta ma taqaana lama ogolnin inaagoo gaari iskaga dhex jiraan 4 saacadood meel iska fadhiyaan tenagtaan iyada gurigeed iska joogto ninkeed u qabtay inuu shaqo ugu maqan yahay cala soo sheegay inuu meesha booliska dhex fadhiyo kabacdi markii ogaatay inuu ninkan wili still walaasheed hami ka leeyahay ma taqaana waxay ku tiraahday de walaalay fur ninkani wuu fure markuu fure de wadadu rabay weeye tan soo ku helo tii doqonta walaasheed aheedna ma taqaana ninkan wili waa ku daba jirta markaas waxay ku tiraahday ma taqaana intii guriga timaaday walaasheed intay timaaday oo dharkeedii gurata markaas waxay ku tiraahday xagee u socotaa markaas waxay ku tiraahday fiiri aniga ninkan jecelahay aan raacaya
adiga ma ka harinino te anaa ninka markii hore taba jeclaaba haddana asaan raacaya ayada iyo walaasheed waxay ku kala go'een ninkaas haddaa raacday ku dhahday ani walaashay ma tihi soo adigi markii hore taba sameeyay gabadhan walaashay ninkan jecel oo ma taqaana balog iska saartay soo adigi markii dambe tan bilaabay inaa la sheekaysato oo guursaday tan marka dhig umaysa dhiginin oo ma taqaana way ka tagtay ninkii bay raacday familkeeda xataa way celin kari waayeen ninkii markii raacday ma taqaana ayadu markii ugu horeysay familkeedii way ku dayrisay oo way baxday ka bacdi waxay soo laabatay ayadoo ooynaysa ninkani amiir ma taqaana lacagta xagee keena isleedihiin ninkan wuxuu ka shaqayn jiray alaaba waaweyn ku shaqayn jiray marka booliskiya waxay ku qabteen alaabihii uu ka shaqayn jiray ninkan jeel baa lagu xiray lacagihiisii oo dhanna waa la xayiray faxagee bay aadaysaa abaaheelay meel aad ma jirto guriga familkeeda ku soo laabatay familkeedana ma taqaana waxa ma sameyn karaan gabadhoodii waay wax walba ay sameeysan gabadhoodii like waay guriga waa iska soo laabanaysa falabadoodiiba intuu ka dhaansaday ay hadda labadoodii iska rab fadhiyaan ka waran ninka bal taasoo kale adiga haday kugu dhici lahayd maxaad sameyn lahayd commentiga nagu la wadaag gabar meydka dhaqdo waxaa looga wacay barnaamij oo maaragtay su'aalooyin la weydiinayo oo maxaa kala kulantay intaasoo sano meydka dhaqaysay عشان نسيت أعمل حاجة عيالها واقفين قالوا لي ماشي الست اللي كانت واقفة قالت لي لا ما تفكيش تاني حرام الست اللي قالت لك gabadhaani waxaa la yiraahdaa qaada waxay ka soo jeedaa wadanka Egypt oo waxay ka shaqayn jirtay isbitaal oo meydka markii la keena ay ku dhaqi jirtay laakiin isbitaalku yahay noomaysa sheegin sheekadii ugu horeysay ay noo sheegtay waxay ahayd meyd baa loo keenay oo hooyo ah markii loo keenay ilmaheediina way la socdeen meydka markay dhaqday maaragtay oo la rabo in la xirxiro sida qof salaad tukanay saasoo kale labada gacmood inta la isu dul saaro la xirxiraa marka gabar bay waxay ku tiraahday gacanta xagga ii saaray ku dhahda labada gacmood oo qofka meedkii ay saa isu dul saartay waxay ku dhahdo qabo oo saa u qabo saa igu hay waayahay bay dhahday way u qabatay markii maaragtay wixii oo dhan ay dhameysay ay xirxirtay ay shakisay gabadha meedka dhaqaysay markay xirxirtay waxay ku tiraahday ilmihii waxbaan ilaaway waxbaan rabaa inaan sameeyo oo mar labaad inaan furfuraan rabaa li'anno way shakisay shakigii run buu noqonayaa waxaa soo baxday ma taqaanaa markii meydkii ay furfurtay waxaa soo baxay gabar yariisa oo 20 jir ah gacantii meydka oo saa isu saarnayd sawirkeeda oo ku jiro naagtan marka oo gacanta ku haysay familka waxbay isu yihiin meeshii baa boolis yimaaday oo ma taqaanaa gabadh naagtii waa la qabtay waxaasna waxay tiraahday waxay aheedan u maleynayaa sixir tan kaleetana sheeko kaleeta ay noo sheegtay sheekada labaad waxaa weeye ma taqaanaa naag baa soo wacday iyadoo gurigeeda iska joogto naagta way is yaqaaneen wax badan isumaysa aqoonin laakiin way is yaqaaneen way soo wacday oo waxay ku tiraahday imow inaan kula hadlaan rabaa wax aan telefoonka ka sheegi karin baan rabaa inaan ku sheego bay ku dhahday markaas waxay ku tiraahday haye waayahay way u tagtay markay u tagtay ay waxay ku dhahdo ma taqaanaa waxaan rabaa ay ku dhahday gabadhayda maaragtay sixir loo sameeyay sixirka loo sameeyay marka waan soo furnay oo waxa la yiraahday sixirkaani intaad qaadid maaragtay qof meeyda afkiisa gali gabadhi way yaabtay naagtii oo meydka ka shaqeynaysa way yaabtay waxay ku tiraahday oo ma sidaasa yani waxay tiraahday gabadhayda sixir waxa loo sameeyay inay saba dhali karinba oo ilmo aysa keeni karin fa hadaa sixirkan intaad qaadid meydka afkiisa gelisid gabadhayda way dhalaysaa qaada markaas maxay sameeyay ma taqaana qaada waxay tiraahday waayahay dib ma lahaanay ku dhahday lacag bayna ku tiraahday waan ku siinayaa waayahay ku dhahday fiiriye ku dhahday aniga hadirtaan xaalad oo meeyda iima yaalaan laakiin markay timaado waa inaad timaadayo aad i caawisaa oo indhaaga ku aragtaa inaan qofkan afka u gelinayo sixirka naagtii waxay tiraahday waayahay bay dhahday naagtii markaasay waxay sameysay qaada way baxday isbitaalkii bay aaday isbitaalka intiisa aadin waxay tagtay meesha booliska tagtay oo wixii oo dhan ay u sheegtay oo wixii oo dhan ay tiraahday waayahay lagu dhaa naagta balami maalintu meyd yimaado markaasaan qabanaynaay ayadiina ma aragtay booliskii meesha iyadoo dhex joogto dhab la siiyaan kugu dhaano
marka xaaladka ugu badan ay tiraahday oo ugu dhibaatada badan ay dhahday waxa weeye xaaladda oo sixirka ah aan nafti in keento qof walba wuxuu rabaa meedka inuu wax ku sameeyo acuudu videogeena inta hadda soo gaartay like-ta and share-ta hanaga ilaawin followna noo soo dheh account-kan waa cusub yahay sheekooyin waa waalan baa inay soo wadaay